حدك عطانكي لحبك عبرتي إزقي حرية لحنكي كعم بحو إن شاء الله مرضى العرو ربي سوعير العدودادو سيرا عربتيو وبحر دينار عرف دونتا عليه بلوغي حدك عدانكي لحبك عبرتي إزقي حرية لحنكي كعم بحو إن شاء الله مرضى العرو ربي سوحير عدودادو سيرا عربتيو وبحر دينار عرف دونتا وعزقاقي مكان سوحيلي عبكوي بفريد وكوضع عقر نقن عولاد لدفيودان إن شاء الله مرضى العرو ربي سوحير عدودادو سيرا عربتيو وبحر دينار عرف دونتا وعزقاقي مكان سوحيلي عبكوي بفريد وكوضع عقر نقن عولاد لدفيودان إن شاء الله مرضى العرو ربي سوحير عدودادو سيرا عربتيو وبحر دينار عرف دونتا اوكي واسكب لابنينا عدنا waxaan u yeerayaa على xareed oo loo jeedin doona opening statementigi ama erayada aan ku furan lahayn barnaamijkeena caaw ku soo dhawaad على xareed السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. أنا أقول الله مدع جدك كوان قابلت حفلة شرفت له. أنا أقول لك إنه مرجيها فاجئ مدحونا رسول الصومالية محمد عبد الله فرماجو. ayaan dadka Santiago deganiyaaga keeda waxaan uga mahadcelinayaa sida sharafta iyo qiimaha iyo qadarinta leh ee uga soo qayb galeen munaasabadan aad ka mid ah muhiimka ah waxaan mahad u celinayaa dhammaan dadkii maal muruq iyo maskaxba geliyay abaabulka xafladan sharafta leh anoo magacooda wada sheegi karin aad badidin kara umahadsantii محمد عبد الله فرماجو حل أدق بوقتي إلهينا وحنا وقبلينا إنه حل كيس أفضيه ونقضه كي أمد الصومالية عدالة كلها وله سيدة برواقه يبشبش أنت ما كان كبعه قلك الصومالية قفك الصومالية ملك السوجوجو وحاسة ميسي أبان آدي أقول دم يا صابس أنتنا ماشي الجوكتة وحد إلهي أقبل ذلك إن أمد الصومالية حب تقدر محمد ونسو الجارو سلا وكل واقع مدحوينها وحالفوني دون أكاونت قف كستوء الصومالية والعب كش بدوره ما كي ينص عدد أكاونت جازنا مرات بانو جعلها إلى ندوينها شيلوك قف كستوء الصومالية أنا وحلا وقف تلك خطر وحال هم اللي جيتته أيام أنفعي ولا ريال آدي بدون سنتين كسر الواقع حفلة شرفت له أنا كوما موسى عبد الله محمد فرماجو يمدح المديس آدي بعض ما سنتين نضلع على حراد كنت وحنا يكرا أدي قدومية عن ورسماء لأنتين حفلة على حوار مصر وتمر كلام بعض ما سنتين مركلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Somalia هاي إسراء Somalia لبعتها ما انتهي ستا إلهي كسر. أذن كلهم ما سنتين.
mudanayaal iyo marwooyin aad baad ugu mahadsantihiin inaad ka soo qayb gashaan xafladan aan ku soo dhaweynayno kuna taageerayno madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo isagu guusha ku helay rabitaanka shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo ay dunida ka joogaan mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa guddiga soo qaban qaabiyay xafladan sida uu sheegay Cali Xareed ma soo koobi karno magacyadooda intii maskaxda gelisay intii lacagta bixisay intii waqtigooda qaaliga u hurtay iyo adinka oo soo xaadiray madashanba aad iyo aad markale mahadsantihiin. walaalayaal waxaa caawa madashan khudbado qiiro leh inoo soo jeedin doona culimaauddiin indheergarab aqoon-yahano suugaan-yahano iyo saraakiil badan oo isugu jira diblomaasiyiin kuwa military kuwa shacab ah oo xilal kala duwan ka soo qabtay dowladdii Soomaaliya oo caawa halkan xaadir inooga ah ayaa khudbadahaas inoo soo jeedin doona haddii Ilaahay waxaa kaloo halkan xaadir inoogu ah fanaanka weyn ee Abshir iyo diijigiisa Shucayb Cabbaas oo iyagu halkan inoogu soo diyaariyay heeso wadani ah. waxaa xafladda halkan caawa idiin daadahayn doona anigoo ah Axmed Yuusuf Cabdi Nuunule Axmed Shukri waynoo bilaabanaysaa. haddana waxaan u yeeri doonaa haddii Ilaahay أحمد قروح وأسوي إنه آخرين دونا آياتها القرآن كه أحمد سودة وورال. جزاك الله خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. إلهي هاكو بركة يا شيخ أحمد قروح dad muslim ah nahay waa waajib wax kastoo aan qabanayno inaanu ku bilowno aayadaha qur-aanka. waxa kale oo aan ku xijinaynaa waa inay noqoto xusuusinta Ilaahay. haddana waxaan u yeerayaa haddii Ilaahay idmo Sheekh Cali oo halkaan inaga wacdin doona asagoo raacin doona kulley tala soo jeedin u jeedinaya madaxweynaha iyo dadka Soomaaliyeed asagoo u mariya diinta Alle. ku soo dhawo Sheekh Cali. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. marka ugu horeyso waan idin salaamayaa dhammaantiin rag iyo haweenba. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. mar labaadka waxaan u tahniyeynaynaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. ilaahay subxaanahu wa tacaala ha guuleeyo. waan u ducayn doonaa hadduu Ilaahay yidhaaho. walaalayaal munaasabadan aan isugu nimid waxaa weeye taageero lagu taageerayo madaxweynaha cusub Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo shacabkeena Soomaaliyeed oo markaas doortay ayaan ugu tahniyeynaynaa. marka ugu horeysa Ilaahay laga cabsado subxaanahu wa tacaala. ummadda islaamka hadday meel isugu timaado waxaa wanaagsan in Ilaahay xasuusiso oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala cabsidiisa isxasuusiyo. Ilaahay subxaanahu wa tacaala waa midka koonka abuurtay, waa midka ina abuurtay inaan adeecno oo maaragtay awaamirtiisana qaadano ayaa loo baahan yahay. Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu ittaqullah alla ka baqa xaqa tuqaatih walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun.
dadka muslimiinta ilaahay ka baqa oo ha dhimanina idinkoo muslim ah mooyaan alla subxaanahu wa tacaala in laga baqo ayaa loo baahan yahay soomaaliya dadka soomaaliyeed iyagoo ilaahay subxaanahu wa tacaala u nicmeeyey oo ilaahay isku af ka dhigay oo dad muslimiin oo isku mida ilaahay ka dhigay oo dad wada dhashay ilaahay ka dhigay yaa nicmadii ilaahay uu siiyey lagu shukrin waayo marka dhibaato fara badan buu ilaahay ina tusay waan burburnay waan rafaadnay dowlado fara badan ayaa la isku dayay in ay soomaaliya badbaadiyaan oo la dhiso dowladahaas iyaga ah dhibaato fara badan bay la kulmeen madaxweynayaashii hore ee u dambeeyey maaragtay xasan sheekh ilaahay waxay geysteen wixii maaragtay wanaag way geysteen allah ka abaalmariyo wixii xumaanna allah u dhaafo hadda waxaa qabsaday madaxweyne cusub waxaana doortay dadka soomaaliyeed wanaag lagu tuhmaya daraaddeed ayaa loo doortay in uu nin daacada yahay oo dadka say doonayaan yeeli doono ayaa loo doortay waxaa la doonayaa ilaahi subxaanahu wa tacaala in laga baqo dadka soomaaliyeed waxaa lagu yaqaanaa waxa la yidhaha laablakac iyo maaragtay inay intay wax la kacaan marka hore kadibna ay markaa mucaarado la yimaadaan oo wixii ay maaragtay ka hor yimaadaan madaxweynaha waxaa la doonaya in la taageero dhibaatada ina gaadhay wax laga sheekeyn kara ma aha qof kasta wuu og yahay soomaalida meel kasta inay ku rafaadsan tahay ama wadamada galbeedka ha ahaato ama wadamada carbeed ha ahaato ama wadamadan oo maaragtay afrikaanka ah in afrikaanka isla nahay ha ahaato markaad fiiriso waxaa ka dhacayo maaragtay south africa oo dad yacni soomaaliya abaal ay ku lahayd ah waad diyaabaysaa sida dadka loola macaamilayo iyo dhibaatada ummadda iyada hadday isdullayso oo maaragtay ay iskhilaafto nin walba suu doonu ka yeelayaa ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay walaa tanaazacuu hadoodina fatafshaluu watadhab riixukum oo marka intaad fashilantaan awooddiina ay tagto ay dhibaato idinku dhexaysaa taas iyada ah goobjoog baan u nahay qof kasta oo wax garanayo wuu arkay dadka soomaaliyeed waxa qabsaday wixii gabar la kufsaday wixii qof la dilay wixii innaga aan isu geysanay waxaa ka daran waxa dadka kale inoo geysteen iyo dhibaatada aan la kulannay waxaa isaga aan si kale ogama bixi karno inaan ilaahay u noqono mooyeen
weligine waxa aan la ogaayo ilmadu iga qubanaysa ikhtiyaarni loo diido ma adoonsadanahaye Soomaaliyay tooso isku tiirsanaye hadmadiina taagdarane taageera weligine oray iyo qabiil daraba qarankeeni baabi'iyo naga dhigay qaxooti qaxo uursadan shisheeyahaye Soomaaliyay tooso isku tiirsanaye hadmadiina taagdarane taageera weligine 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 Soomaaliya ha noolaato. Abshir iyo Shucay aad iyo aad baad u mahadsantihiin waadna qiiro geliseen run ahaantii aad iyo aad shucuurtayada ayaa kacday waxaan ku halqabsanayaa haddaad daawanayseen markii doorashada socotay waxaa jiray nin dhihi jiray xildhibaan Zakariya markuu khudbadii tanaasulka samaynayay ayuu intuu xildhibaanadii labada gole saa u fiirshay wuxuu yidhi indhihiinaan u jeedaaye waxaad dooran doontaan mid khayr qaba haatan anugu indhihiinaan u jeedaane waxaan u malanayaa kuwa ducadooda alla qabali doona inaad tihiin ilaahay ducadii naga aqbal haatanna waxaan u yeerayaa guddoomiyaha guddiga qabanqaabada Cali Warsame oo erayo kooban asaguna halkan ka jeedin doona intaanan u gudbin khudbadihii qiiraha lahaa oo ay noo jeedin doonaan dadkaan caawa idiin sheegayay haddii ilaahay Cali Warsame kusoo dhawow بسم الله الرحمن الرحيم Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya horey ha uga dhaqaaqdo muddadii dheerayd dhibaatadii ay ku jirtay mudanayaal iyo murwooyinba aad iyo aad baad u mahadsantihiin kasoo qaybgalkiina aad kasoo qayb gasheen xafladan aanu ugu talagalnay in lagu taageero madaxweynaha cusub oo la doortay dowladda federaalka Soomaaliya loo doortay محمد عبد الله فرماجو dhammaantiin waxaan leeyahay soo dhawaada waxaan kaleeto halkan mahad uga naqayaa guddigii waqtiga dheer iyo saacadaha dheer geliyey in ay hawshan qabtaan oo inoo suuro geliyey hadday kharash tahay iyo hadday waqti tahay iyo hadday saacado badan oo socod iyo qaadis iyo dhigid iyo hagaajin tahay oo rag iyo dumar isugu jiray hawshan soo dhamaystiray iyagana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan halkan ugu mahadnaqayaa oo kaleeto labadii gole oo ayna si aan caado u ahaan jirin Soomaaliya shacabka Soomaaliyeed inta qaarkood xataa ka qaadeen polls oo ogaadeen shacabka ay matalayaan waxa ay doonayaan ku dhaqmay oo madaxweyne ugu doortay iyagana waan u
waxaan kaleeto oo halkaan uga mahadnaqayaa madaxdii barnayd oo Soomaaliya ka soo shaqeynaysay oo ay ka mid ahaayeen madaxdii labada aqal madaxweynihii hore dowladdii horeetay oo maamulkii waxaasoo dhan oo isku soo dubaraday doorashadii lagu doortay madaxweynaha maanta la doortay oo lagu doortay shacabka Soomaaliyeed rabitaankooda iyo ilaahay oo shucuurta Soomaaliyeed isu keenay oo gaarsiiyey oo dareensiiyey in ay codkooda ku gudbiyaan social media hadday tahay telefoon hadday tahay sacyo caadi hadday tahay isgaarsiiyey in maanta inta la doorto madaxweynaha waxaasoo dhan oo hawada marka la soo maro madaxweynaha xil gaara ayaa fuulaya iyo expectations aad u weyn u gudbinaya guddiga inoo qayminaya dhammaantiin soo dhawaada Axmed ومعزية قدومي على ورسمة صار لي شيء أصيع على حراد لأنتو حفلة عام وصوت. أوكي هذا روحنا نقول قرينا خد بديه قينا لها وحنور مرنيها. وقاس عمر حيري. وقاس نقول كان ميكروفون كمسوي سايس. بسم الله الرحمن الرحيم. dadweynaha reer San Diego title kasto ay wataan day culimo yihiin day madax dhaqameed yihiin day arday yihiin day professor yihiin day kuwa gawaarida kala duwan wada yihiin day ururada bulshada yihiin day lafdhabarta gabdhaha Soomaaliyeed yihiin kuwa fudud iyo kuwa culusba cid kasta bahda saxaafadda qabanqaabiyaasha dadkan reer San Diego iyo wixii marti oo ay meesha ku marti qaadeen ayagoo nin walba taytalkiisa halkiisa kursi ku qaadanaya waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh bacdi salaam marka hore mahadda ilaahay baa iska sagaana abuurtay asagaan hoos taaganahay addoonkiisa aan nahay asaga ayaan halkaan isugu imaano inagoo qurux badan oo caafimaad qabna asagaa iskale awooddaas mahadda ilaahay baa iskale baa mahadnaqayna mahadda labaad waxaa iskale dadweynaha reer San Diego iyo guddigoodii xafladan qabaqaabiyey quruxda badan haddana annagoo laga yaabo rag badan inuu naga mudan yahay nagu marti qaaday mikrofoonka inaan imaano iyagana waa mahadsan yihiin waxay ila tahay aan sii degaandego haddee marka hore aan reer San Diego ahaa haddana mar labaad baan reer San Diego salaamaya 10 sano ayna ka maqnahay marka waan soo noqday laakiin ma sii joogi doona aadna idiin marti maayo mar labaad waa salaamantiin dadka waa iga xigtaan waxaa jiraan reer San Diego saasaan ahaan jiray laakiin 10 sano duulaankaasaan galay dalkii baan ka imaaday dadii warsanaysaana munaasabadda wixii ka dambeeya diyaar baan u ahay waxay iga weydiinayaan dalkii iyo dadkii intaa kadib waxaa iskale munaasabadan siday guddigu sheegeen madaxweynaha cusub ee hadda la doortay ee farmaajo hadda iskale munaasabadan waa ayidaad waa taageero anugu hadda anoo ka imaaday Soomaaliya waxaan jeclaan lahaa mahadnaqa in lagu daro labada gole hadda Cabdi Warsame sheegay labada gole ee madaxweynaha doortay waxaa soo dhisay odayaal dhaqameed anigu aan ka mid ahay ayaa soo dhisay raggu iskama imaanin waxaa soo dhisay madaxweyne goboleedyada soo dhisay aqal aas-aaslaan ma dhisno mahadnaq inaad ku dataan bay ahayd arrintaas waxaa jira meeshay ka bilaabatay halkaasay
marka miyaynan mudnayn nin waliba wixiisa in la siiyo soomaali hal isu keenaan layidhi انت حفلته سعودي الى هذا وحنا قسينا ركبي هاي مين قبلوا حق هاي على حنين واري كعام عصبه وحلو يرجع على حنين قبلوا حق بيني وحنا نام سنه الى كل ميسان يوصل الركب وقرنت الله الله ومركا اي تيمادو ديننا ودنيا مركا تيمادو هذا وحا ويريا وبح علي وبح ايجن وبح عداد المقليسي كسلو كرفو أبقى ومعتدين دمان dadka ka soo qayb galay xafladda quruxda badan ee ku dabaaldegayna madaxweynaheena maxamed cabdulaahi farmaajo waxaan mahad gaara runtii u soo jeedinayaa dhalinyaradii dadkii soo abaabulay xafladdan weliba taymka yar haystay ee xooggaa geliyey inteenaas wadada soomaaliya isku keenay mahad gaara ayay leeyihiin marka hadalkaydi ku dheerayn maayo kulan wax yar ma ka hadli doonaa waxaan leeyahay Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha midowdo Soomaaliya ha israacdo aadaan habiruntii u ahayd maanta Soomaali inaynu aragno inagoo nool inay Soomaaliya midowday oo meel ka soo wada jeeda oo hal muuqaf leh maanta inaynu aragnay runtii aad baan ugu faraxsanahay dhammaanteedna kollay qof walbaba iskii buu ugu faraxsan yahay inaynu aragnay maanta Soomaaliya oo midowday waxa kaloo aad ugu faraxsanahay inaynu kii qabiil ahaa la aasay qabiil waa dhamaaday Soomaali qabiil waa ka dhamaaday Soomaali waxay ogaatay dhibaatada haysata iyo sida ay ka bixi laayihiin inuu yahay qabiil markay meelaha kala joogaan dadka waxay iska jecel yihiin male markay xumaanta noqotana qabiil la isku adeegsado si Soomaali maanta way ogaatay meel baynu ku soo xileen aad baan runtii ugu faraxsanahay inaan taa arko waxaan ka tacsiyadaynayaa maanta dhibaatadii xamar ka dhacday aad baan ka xumahay dadkii ku dhintay dadkii ku dhaawacmay ilaahay intii dhimatay ha u naxariisto intii dhaawacaana ilaahay ha u fududeeyo dhaawacooda كله وارن والله عاد وحنون بدن وحن لا يهاي سومالي ما أنت مدحوينه إنه ربنا وينه هلني ما أنت ماشي إنه ربنا وينه قاعدني ما أنت وحين أوبا هنا هاي إنه شعب كينه مدحوينه هنا لا شقينه شعب يدك ما أنت قل بتشوك تأ ما أنت تشوك بناك وبا ودن كيس بيسنكرا مدحوينه ما أنت لدورتي وكل يسوي حبه ما قبل كرو أبارة دك كينه ودن تاني دمر كينه عبورتين قاعد يسقوا ودن تاني haddaynan inagu u kicin oo wadankeena inagu ayna wax u qabanin waxa ogaataan cid u maqnaan karo oo maqan oo kale inaysan jirin marka maanta Soomaali way midowday aynu kaga faa'iideysana jaaniska inaynu sameeyno abaaraha u gurmano qof walba xil saaran weeye maanta madaxweynaha aad baan horta ugu hambalyeynaya Cabdulaahi Farmaajo aadna waxaan ugu mahad celinayaa dhammaan baarlamaankii rag iyo dumar ahaa ee codkayagii qaaday ee xilka iska kaaya saaray ee maanta si aan laaluush iyo saqajaan ku jirin maanta Farmaajo noogu soo doortay aad baan ugu mahad celinayaa runtii marka waxaan sheegay ardayda waa soo gabagabeynayaa waxa ugu weyn hadda wadankeena ugu baahan yahay waxa weeyaan inaynu abaaraha u kacno aniga taas runtii aad ugu muhiimsan waxa madaxweynuhu guddigu sameyn doonaa guddidaana waxaan rajaynayaa qof walba oo Soomaali ah oo wadaninimo ku jirto ayuu xilkaasi saaray maanta dadkiisa inuu caawiyo marka hadalka waan soo gabagabeynayaa waxaan idin leeyahay aad baad u mahadsantihiin thank you very much sandigeega iyo xafladaha isugu dabarido this is beautiful xafladaha ugu quruxda badan bay noqotay ee ka dhacay Mareykanka runtii iyadoo waliba laba cisho lagu abaabulay aad baan kaaga mahad celinayaa jaamac ubax waa idin sheegay in keligeed ay u dhigmi doonto wixii laga hadlay markhaati ma ka tiri oo runteed say sheegtay
haatana waxaan u yeerayaa ugaas cabdinaasir cabdishakuur oo asagoo u labisan habkii dhaqanka soomaalida lagu yaqiinay macawiskii goobka shaalka ahaa iyo koofiyadii kusoo dhawo ugaas. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waxaan ka salaamayaa ummadda Soomaaliyeed wixii dalka jira iyo waxa gudaha joogaba. Salaan kadib laba arrimood baan ka hadlayaa. Arrinta koowaad waxa weeye waa bogaadin raggii hore ugu horreeyay uu yiri. Arrinta kale tan waxa weeye waa tacsi. Sidaa la socotaanba maantay 35 qof ayaa Soomaaliya lagu dilay magaalada Muqdisho. 40 kale tan waa lagu dhaawacay. taas waa tacsi aan ka tacsiyeynayno anoo ku hadlaya magaca ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan magaalada San Diego. waa arrin aad naxdin u leh oo dhibaatadeeda leh oo runtii laga naxo laga danqado weeye. saa la socotaan idaacadaha ayaa saaka talinayay iyadoo hooyooyin iyo carruur iyo ilmo ay ku leedeen oo ay lagu laayay suuqii Madiino. saa la socotaanba taas waa ka tacsiyeynayaa anoo ku hadlaya magaciina magaca ummadda Soomaaliyeed magaca reer San Diego. aad iyo aad baan uga xunahay. arrinta kale aan ka bogaadinayo sidii ragga hore bay yiri waxa weeye doorashada la doortay madaxweynaha cusub Cabdullaahi Farmaajo waxaase guushaas dhaliyay oo aan dhihi karaa waxa weeye waa baarlamaanka labada aqal oo runtii suurto geliyay inay maantay Soomaaliya ay waa cusub u furaan. Soomaaliya waa garanaysaan waxaa la dhihi jiray Itoobiya wadata Kenya wada qofkaasaa wada marka waxay suurto geliyeen inay Soomaali wadan karto inay Soomaali wax dooran karto. ilaahay baa mahadda iskale baarlamaanka Soomaaliyeed oo maanta la doortay aana iskale. waxaan kalena halkan ka bogaadinayaa madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud oo runtii aan dhihi karo si aad u sharfan oo u hufan ayuu xilkiina u wareejiyay wax weyn oo soo qabtay sababtoo ah nin baa wuxuu weydiiyey oo wuxuu igu yiri niyo maxaad Farmaajo saa ugu jeceshaa oo ugu ololeynaysa. waxaana uu tuumsan yahay ade reer qurac iyo reer qansax baa iska jira ويهب وحدوسي أنا سكايبنا وحكوا والله بالله تالله إن أنا هيد منك أسكراي كنا دورا كنا جعلين ولا لين لكن وحكوا شيء وحبنا بدراسين يعني كا وقدم بنتي نكي أنكو قنعي أو أن تصي كليب ومدحونا فرماتش ومركو رئيس الوزراء حكم الجار كوا دولتي وكرودين كا شيخ شريف أهل وسمي وكهلي وحيري مدحونا فرماتش أنتوا سمدحونا نقول لكن وكجري كامبين ومري دلالك منطقة دبادة يوضنك بديس ينتبه وحيري هذا كور أيها واحد ليس در ديارة سقف البو صومالي كليب كاس ودعوان كرتا وحال يري بينالي ننتهي ندير بمرخات كريتا وحيري ديارة الوطن كنا دولار هاي وحن كيري ولا لو ديارة شعب كها ماي نكي معناها ضدك استاف كاولش ثاني ديارة أدو واحد تعرف وزارة مرة راعي كتير محايا وشرب بس مرة ضدك على ولي بعطيها marka mudane ra'iisul wasaare diyaarad toos ku geynaysa Nairobi oo safar ugu socday baan ku diyaarinaa $200 adeer mid aan $200 lagu raaco sida Juba Airline iyo wax la mid ah isoo goobay afar qof baa waqtigii ka koobnaa $200 baan ugu baxday maxaan u baajiyay dalkii $19,000 iyo $200 fiirsada ilaahay baa ku dhaashay ku tagay Nairobi ayaa safiirkii iyo hawlwadeenadii safaaradda waxay u soo qabteen hotel haddaan dambi iska dhowro suudkiisa waxyaado $1,500 habeenkii lagu kiray adeero kuwa $30 iyo $20 ma la heli karaa baan ku yidhi maya mudane mataqaan ra'iisul wasaare halkaana madaxweynayaasha ra'iisul wasaaraha marka waxaan ku yidhi adeer waxaad rabtaa amar inaan ku siiyo mise waad geynaysaa hotelka rakaysa
meequl lacag baa jira ummadda Soomaalida dhibay wuxuu isticmaalay laba arrimood wuxuu yiri war miyaanan ilaahay ka xishoonayn markaan $20,000 dadkaan aragnay oo soo baqtiyay ama $500 hotel aan ka bixinayno miyaanan dad ilaahay ka xishoonaya oo in aakhire ilaahay la xisaabtamo aanan ahayn damirka noocaasa qofka ay ku jirto midda kale wuxuu yiri wajeer marka aan siimo waxaan ogaanayaaba oo yani ka cibro qaadanaya dhibaatada dadka aan madaxda aan u ahay ay dareemayaan una sii maray wajeer dadka sida loogu galanayo u ark marka walaalayaal damirkaas iyo dadnimada noocaasa intaasaan kusoo koobayaa ayaa anuu ku jeclaystay reer Qansax iyo reer Qori iyo reer xagga haddana waxaan u yeerayaa Cabdixamiid Somo waxaan rajeynayaa inayna u qaadan ninkan afka Soomaaliga markuu ku hadlayo inay u tahay luqadii labaad waa baxaali ma taqaanay horta Cabdixamiid ku soo dhow أحمد ومحسيهاي وارونتي أيضا ساعة دولة الصومالية ما يبقى جرتي كو يوتوان سنة يا مشاقي حقيقة عيدا كقرن كصومالية بانك ترسنا كو يوتوان سنة داد أن ودن كسكونا قالنا وحاكمنا عبد الرحمن تادسي وقبل عبد الله قولت قبل جري وأن سلجوني asaga waa la soo diray inuu wax barto anna xaqan ku haray marka waan ka dabaymid halkan aan isku aragnay marka kulay ani qoraal baan soo qortay qoraalkaygaan akhrisanaya insha Allah taala waxaan hambalyo iyo bogaadin u jeedinayaa dhammaan dadweynaha sharafta leh oo ka soo qayb galay munaasabadan dadweynahaas oo isugu jira rag iyo dumar odayaal iyo dhalinyaro aqoon-yahano iyo dheergarata culimo iyo caamo saraakiil iyo suxufiyiin mar kale dadweynow waad ku mahadsantihiin ka qayb qaadashada munaasabadan loogu magacdaray soo dhoweynta madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo cod aqlabiyad leh lagu soo doortay bishan Febraayo 8 2017 doorashadaas oo ka dhacday xaruntii hore ee ciidamada cirka Soomaaliyeed ee Afisyooni magaalada Muqdisho waxaan kaloo hambalye iyo bogaadin u jeedinayaa dhammaan xildhibaanada labada gole oo ka kooban 329 xubnood oo sida geesinimada leh ku soo doortay madaxweynaha cusub mudane Farmaajo ayagoo ka turjumaya rabitaanka shacabka Soomaaliyeed ee isbedel doonka ah sida dhabta ah xildhibaanada musuqmaasuq lagu sheegi jiray xildhibaanada waxay muujiyeen inuu musuqmaasuq jirin farmoojana dabeela wadata laas Cambodia iyo looy cadde inta u dhaxaysa adduunyo meel ay Soomaali jirto aan laga soo dhaweynin malaha waxaan aaminsanahay inuu si sharaf iyo cadaalad wax ku wadi doono ilaahayna ku garab galo idinkana ku garab siiya wassalaamu calaykum aad mahadsanyahay mudane Cabdixamiid Somo maxaan idin waxaan iraahdo wuxuu oran jiray Donald Trump leave haatana waxaan ku tuuranaa hal hees oo wadani ah Mr. Shucayb iyo Abshir qiiro geliya dadka Soomaaliyeed soo xasuusiya wadaniyadooda iyo dalkooda طبيعي طبيعي أول مرة تخيلوا
أبدي إفكاوغ صباحي أنيغو نفع برم نعودي سود قلي كيبو أنتريو أبي غيبو إفكاوغ صباحي أنيغو نفع برم نعودي سود قلي كيبو أنتريو أبي غيبو إنكو أذيبو عدوك إلى شون آيا كتليا أحدكو مريا اللي غيبو وحسيتك أمال دعين أدوسك لك رسوما تصوما لك يا صوبة وضغط صوبة نمشي صاير صوبة روحك وعم بقاطبة صوبة وقعدة غيرك صوبة tahay sawma oga isagu inuu ku leeyahay sawma oga ablooga harina tahay sawma oga dhaxlawo wayna tahay sawma oga isagu inuu ku leeyahay sawma oga waxase kugu samaata aligayo السلام عليكم. وكنا ويلك هذا لاي ما محاتري أختبر كلها بلا وكو ويلي ماي دين محاتري اللي كيجي مركب ماي دي مقول هالمامي موش لازم يوم ولي كدي أتوي بوا سلامتين غير سلامتين سقيري كبير ويبقى تهنئة دري مدحوينا هاينا محمد عبد الله فرماج يقول اللسي هلكا القبض مركز حالوين دري تهنئة دكا معمولي حكا قيب قالي سدا قالوا كهنسوبي إيلا ما حسنتين بيرسن ييغن ما حسنتين
marka walaadka dadway had ogaaday wadanka lama afwaay rakiseen ray halin boole jarbeewa maay la yeed maxaadri maleero hada la socdo marka maay maxaadri la hadalay marka aan hadalkay ma badiyo hadana way koreejiyay shariida koreejiyay Abdullaahi Nuwaakay salaam dadkii hadda ilaa hadda hadlay gabdhahan uma sheegayo laakiin raggu waxay ahaayeen rag 40 iyo wixii ka weyna miyaanay dhalinyaradu xaq lahayn haddana waxaa u yeerayaa cabdimaalig sheekh cali bucul ku soo dhawow بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انت كم مشغول ستي سمبوسكين وبسكتكين ان شاء الله وين صدق جمينا يا اولا الهي سبحانه وتعالى يا محضر انت اسكبعدي دك سوخه من قبل برنامج كان وخيرك بدن وحرب انت كهذا دور قلب كان كوباد وحويان waxaan la kulmayay ani professor baan ahay marka nimankan cadaayasha professorska in badan waa tashaahayna markii ay doorashada socotay mid ay text message soo wuxuu yiri New York Times article soo baxday oo dhahayso the most corrupted country in the world wadanka ugu mas badan ayaa qabanayso doorasho qof walbana oo isoo mataqaana taagay wadan baa wada kan Ethiopia wada kan Kenya wada kan Amarata wada kan Turkiya wada kan Mareykan wada kan EU wada kan UN baa wada marka doorashada dhamaatay text message wada marka waxuu yiri niyo doorashadan oo qof walba rajeynay corruption kala sheegay dadkan xildhibaanada Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu amray intay dadka shacabkaas codkooda siiyaan tiinana rasha faraysa Donald Trump oo iska socdo oo maanta non believe me ku haayo ee maanta yaa leeytini ku haayaan oo waxay Russia investigation awadno marka wadanka ugu mataqaana demands ugu fiicnaa kooda waa la farfareeyay kiina wadannada ku socota alxamdulillah marka taas arin ugu farxo runtii badani aad iyo aad u mahadsan yahay lid caaw bilibni waa soconaysaa ninkaasi English u khudbayn lahaa waa idmayn lahayd waa inaan hayday okay waqti waa ciriiri marka waxaan jeclaan lahaa dadka speakerskaas saddex daqiiqo inay hadalkooda ku soo gabagabeeyaan haddana waxaan u yeerayaa Bilaa Ibrahim Ismaaciil بسم الله الرحمن الرحيم أمان مدرياشا مروينكا شركة كسوق يبقى عاوة آل وهم هذا يا حيا لهدار الشركة اللي كسوق يبقى شركة سيداني يعني وما أصاب عناتين مركا آل كم هذا يا وحاكا أو هذا يا labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya ee aqalka hoose iyo aqalka sare sida ay isu xilqaameen isla markaana ay uga tarjumeen rabitaankii shacabka Soomaaliyeed una soo doorteen dadkii ay doonayeen maxaan ku raahdaa ummadda Soomaaliyeed ayaguna aad iyo aad baan ugu mahadcelinaya walaalayaal Soomaaliyeedow waxaan idin ogeysiinayaa canug maanta dhashay inuusan soconaynin waan ogahay expectationka ama waxa aad ka filanaysaan madaxweynahana cusub inuu yahay Soomaaliya oo jaha qura qaadata isla markaana horumar samaysa soona ceshata magacii Soomaali ee adduunyada haddana waxaan u yeerayaa
waxaan u yeerayaa Maryam Faarax Looyaan. Maryam ku soo dhawow. wadaniyeed laga yiraahdaa soo dhawow Maryam. الله كذا إن شاء الله. ماشي وياك كودن قاطية وياك ما يسكحوا وياك كودن قاط. بسم الله الرحمن الرحيم. سشرف نظفة دان رئيسن داغ ومهتسنتين. رئيسن داغ رحم نولاتو. الله يدي شفو الله يدي شفو إن شاء الله. في قرح بدن وقصوا قيب الشيخ حفلة ده. أنا وحار رباه صدق قيب ودينا نقهضه. قيبنا شعبك أنت الماما فرط ميل وفيقه قيبنا عالم كاسو على هيينهم كشيوه قيبنا إلى المدحويناء وقد عايوه إن شاء الله صومالي وين وعلى يا هاي محمد فريد طبنك يا بقلك قرانك عدد ديسان عيدان كاغر ديغي شروادي يا شيطان ربي جاي هكا حفتيو يبغى يا دار ودان ربي جاي هكا دعسدو يبغى يا دار ودان ربي جاي هكا دعسدو الله بارك يا حكم كاغبا وركاله الله يا بلها وكنينو بالها جلي محمد إيكا لغا دورتي عشيقا لغا عزومي أبنا هاي نوب عزومة داس إلهي شرعي غاغا وإلهي شرعي قيس شرف تبادل نوا قادنا دقي سو دقن نقلو تقال هادو كي يادو ديل تيران رغارها هذا كي أدو دلتران الله بارك يا حبهم كاغم باور كاله الله يوم بلها وكني نوب لها غلي محمد وروح محمد أرور يا محمد أرور يا نقو إيمانك سو كامل يا هاي محمد أرور يا نقو أرنت صدورك سنتهاي محمد أرور يا نقو أرنت صدورك سنتهاي محمد سكان نقو إيمانك سو كامل يا هاي شنتي صومالي شاهدوا وياه شبابنا ويرو يا شقاقة شيرين شارو بح شوشو تك هكو هكاتا شيرين ويقاتا الله نغيرو هاتنا ولا ريال وحانو يري على يرد الدادية كل بسنة على كيبلوغها oo hal dhaanta oo ka turjumaysa hidaha dhaqankayaga noo ciyaari doonta ku soo dhawaada stage
waxaan jecelahay inaan idhaahdo midnimadu wax walbay ka fiican tahay aan midnimadeenna ilaashanno aan wanaag samayno alla dartii aan taageerno dowladdeennii haddaan idiin sheego anigu magacayga ibraahim sheekh xuseen aa la yidhaahdaa waxaan ahaa ardaydii jaamacadda geer ka soo baxday oo shilin la'aan wax soo baratay dowladda Soomaaliyeed ay siisay fursad guri oo maalin halkaa kale ka soo shiray xaggayga yahay maxaa aan ugu badateen hadda waa maygii waa siciid oo yidhi aniga laguma yeeri karo bantu aniga waxaa la yidhahdaa buu yidhi siciid Soomaali السلام عليكم marka aniga Soomaali zaid ma garanayo marka waxaan isku dhibaa in yar Soomaali laakiin badna bamayaan ku hadlaa marka message yaraadi maamaha yaraa idin haya oo afkaan hariifko may day roori deen waay ma garanaysaan roori deen waay marka waxaa waaye hoosna u taway hooskaada waay haddaasaan dhahdo ma gaari karto so waxaan idin dhihi lahaa kolley hamiinkan aadanka faraxsanna marka inta may la dhahay farmaajo iigey dad badan may dhaweena farmaajo iigey marka may la dhahay nin markii oo hil qaadi walkasta qaadi marka la kacaaye laku kordhuwe walkastii laki dhehe walkastii lakoo sheege laakiin anaga hadda maana oo jareer ahaan eena marka dadka mayna dhaayana jareer Soomaali Somo hamiinkan wali ka bilaawdo Somo ma jir Somo may ki jeeday waxaan ku jeedaa Somo anaga waxaan dhahnaa Allah Soomaaliya waxna yeeshay Somo dadkaana saasay dhahaan laakiin annagana dadka kale jareeraana dhaadan laakiin waxaa laga bilaawdo Somo iyo jareer ma jiro marka dhab ahaantii haddaan idiin sheego Soomaali kasto nin kasta dhibaataa loo soo geystay it's not individual person it's not only Somali maahan qof kasto jareer ha noqdo Soomaali ha noqdo qof kasta dhibaa loo geystay laakiin qaasatan individual dad dhib u geystay maayna Soomaali dhib ma qabto السلام عليكم ودنا يبغوا يرى هذا يا فرماشة يجي يا ماشي كنت يا بيسي وحالك إلها بين بارك ماله
بيسين كنبها وركاله بهدي سنة هاي إسلام كوببها ليا إيوان براني الله بس كناغا حجاب سلام عليكم صومالي دمان سليغا نبيغا نسالها واتلا عليه الله سمانو غير ساكن كولن كيال مصلحة صالحة ربو سلوك لهاي الله نبو ساعد ريغا كوساهاي سنة وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. runtii haddaan ka hadlo arrinka maanta annagoo dhan u joogno in badan oo aqayaal ah iyo gabdhoba way ka hadleen way mahadsan yihiin aad baan waxaan ugu rajaynaynaa insha allah madaxweynaha cusub la doortay maxamed cabdullaahi farmaajo in uu ilaahay guul siiyo in uu ilaahay talada culus loo dhiibay ilaahay inuu garabkiisa galo إن شاء الله أنا جو وقتي كفاية سنة يوم أيام محاربة أرينير وكسب مجالدينا إن أنا كله الله دوالد. بسم الله إن رجعت وضيعش ويوين كان دليلنا مرتشرت كان جوبته مروين كي هواين كان شرفت الأفكار أو مدة سومالية مركز واحد بكل سلام يا سلام تسلمكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. marka labaad waxay sharaf ay tahay in halkan lagu ixtiraamo oo laga tababaraan kiraado anigoo waqtiga dhowrayo runtiina hadal badan waxaan u buuxsheynaa wax badan ka hadlo marabo intii waqtiga waa laga hadlay keliya waxaan rabaa inaan xogaayo ogaana habeenkan sharafta leh ee aan u dabaaldegayno soo dhaweynayno doorashadii madaxweynaha cusub mudane maxamed cabdullaahi farmaajo uu nasiib ku yeeshay 8 bishan February 2017 in la doorto si uu uga sii ambaqaado halkaan uga sii wado shaqadii institutionadii ka horeeyay ay guddiga u ahaayeen oo ay aas-aaseen waxaan rajaynayaa inuu meel fiican geyn doono haddii aan yidhaahdo iyo waxa soomaalida ku taaqayso oo ah in la fadhiisiyo siyaasadda soomaaliyeed in la fadhiisiyo amniga iyo waxyaaba kaabayaasha kale ee dalka dhismaha muhiimka u ah dabcan uu gaarsiiyo ummadda halcad iyo sida laga rajaynayo waxaan rabaa inaan ku nuxnuxsado inay muhiim tahay in la taageero lalana shaqeeyo sida hadda loo soo dhaweeyey inaan laga xiisa dhicin dabcan caqabadaha horyaalla ma ahan kuwa aad u yar waa kuwa aad u badan marka inaan durbadiiba aan wax laga sheegin waqtina la siiyo lana sabro شرفوها جوجان عيداد وهضن أكوها قبيش وعليرتينو أروينكو إرمانو أكو هيرا ليسي الله كاغواريو شرفوها جوجان عيداد وهضن aku hafal desi wah lerdiyo away ko irmano aku hafal desi ay badruhat wena wahyo badruhat wena wahyo wala mauna أجدي وحقوقه وأنا لما هنالي أجدي وحقوقه صبالي أنطلق هيا في أين عن وحدنا وإلينا أولي في أين عن وحدنا وإلينا أولي
الله شكرا سيدي السلام عاوة قطبان صوت يا فريق لكن وقت عن قوسين قطبان واقع لكن وحن كهلا مر أنا أستهلا يا وحوال لما وحبلا وموقتي لكن إلى الشيء مرنا عليك يا الله مرنا وأمة الصومالية فرماتشو غير راسي عاوة أسامي قبلين نلسو شقي مركو وسيلة هاي من القدرة لا وقف هاي رسو شقي أنا وانسو شقي maalmaha ka mid ah anoo san diego baasha iskandido geeska u dambeeya ayaan ka shaqaynay habeenkii 12 saac shaqeeya aroortii aan ka soo baxay freeway-ga markaan soo gal rabo iyo gabar ina soo hasho magaca mal united haa email ma leedahay سفي عبود مغل ما فري ويبان قلا وكم حياة نكت بهاي بان فري ويا كم حياة ما قعد من ويا هذا إيميل ما له هذا إيميل كان فوسو بدنا وحقوق بركة السلام عليكم وعليكم السلام يا جماعة أنت اللي حفظت في سوق شيء وردن meeshaan waxay rabtaa waxaan wada keenay farmaajo ii geey hatta ciyaalka waa ku halaaqan farmaajo ii geey ku haya farmaajo intay kari waayeen suuganta gabay haddii aad samaynayso iska suubi maahe xigma lagu saleeyay halkaad hiigsanaysiyo saxbaa laga abaaraye nabadaan odorosniyo haddii sahankii loo toosay nabadaan odorosniyo haddii sahankii loo toosay hoggaan wacan aan helno saadirna la doonay sagarinaan ka soo guuriyaan saacan doorbidaye maqalkiina ii furo haddaan idinku sawdayne أحمد محداية هدايا لغة دقيقة كبضا هضلم أحمد أني وحب لي هدي فرماجة من الحويناء وقتي لنا يرتب اسكري ريح يجري وانا مات هاسو مركا ولا لي المحا عاوة ما أنت آدي آد بيقو انتهي لأنه فرحدة يؤمد ماشي ساسو سبو حسين والصومالي نمو موجنسة أي موغطة عاوة محن أقاهي أنا بلاوي تاي دب صنقت كي أمد الصومالية. لما أنت والد السلامي سؤال واحد هذا أنا هري لو محل واحد محا هري هذا الكيوال وديري أنت أنا وعده إسماعيل بلوغس ودجيلا صوماليا فرناجي ما أنت لدورتي وأوجي نسي لو شيء قبل gudo iyo dibadba sidii loo taageeray taageeradaasna anigu waxaan aaminsanahay Soomaalidu waa la qanuuftay Soomaalida nin Gabriel la yiraahdo qanuuftay qanuufadii baa kicisay waxaan xusuustaa farnaajo markii uu ahaa ra'iisul wasaaraha waqtigii gaabnaa waxa laga sheegay nin oo kamid ah hay'adaha macaawina inay bixiyaan iyo jaajuusinta ah nin baa waxa laga sheegay ninkan ra'iisul wasaaraha waa nin qabweyn waa Soomaali قبك أنا قدام بعقبوي كل جيم بعقبوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله سنة سوشيال واتيمي وأذكي. سنتي ووينيا. لكن Somali بعد. ewan ahaan waxaan ka dhashtay aniga beesha shiidlo
magaalada gobolka shabeellaha dhaca tiraahdo aniga markii af Soomaali baranaysay aniga gacan u shaqeynay laakiin shay shiidla ku soo jeeda shay shiidlo talyaani saas yiraahdo shay shiidla ku soo jeeda alxamdulillah rabbil caalamiin hadda waxa la sheegay odayaasha hor ku hadlay horta waa idin salaamaya 104 maadaama aan weligay ka istaagin mambar ee maanta farmaajo halka ay istaajin ninka yiri farmaajo ninka waa walaalkay dawladaha soo maray Soomaaliya nin walba waa moog waa ogyahay alxamdulillahi rabbil caalamiin wax walba oo xaq leh ka ahaday laashin hadlay wuxuu yiri oo dadkayna ala soo xasuusina xumaantii la soo moodiyay ala isku xiraasir xarintii iyo dirka yaana kala xeero xundurtii iyo buufku السلام عليكم horta hadallo badan aan soo gaadhay maanta wax kasta dhihi karana waa la soo dhaxay already marka waxaan ku darsan lahaa cadow aala kastu heli karo isticmaalaya sama dad kala jaban iyo nooca aragtida fog ayuu ku faa'iideystaa marka insha Allah I hope maanta ka bacdi inaan noqono dad isku tashi ah oo hal cod ku hadlayo oo hal dul raadsanayo og horta runtii waxay u dagaalamayaan iyo waxay ilaashanayaan marka maalmihii wadamada kale ay na adeegsan jireen ha laga baxo insha Allah بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أنا كل يوم أنا يرى أي سامي بربكي صومالية ودنكي وحنا شيء متقنا أنتم بربرين وحي الكور متقنا أتيك لأن يرى من أنا جوور أن الوقت سنة والله ستة I didn't think أنا قالوا يلا أصعد ما قررنا بركة نمط حد من أنا واجو خير الله سيا وحي وبوش قرين حب لأنين الصومال متي توبيا صوم حتى سجوبات هاي سامبات هاي بركة وحي وكلفتين وحي بويا لي قوي الصومالي ولن تصوغ لنا حكدي بصوغ نبا كنتي ما نجعل إننا ملاها دفت الصومالة بدن أسبوعي ما ولي جميع ماني فرماجة أو فسبوع فرماجة سنة هيرا بسم الله waxay qof ugu horeeyay waxa ku qoran laakiin xoolo soo daayay la Soomaali waa noqday waxa rawaana noo maqan gabay calana waxba isku kiin xagelinaya maadaama sophisticated noqdo wixii dhan loo wada xifdiyay timca doorbida indhawoyd bawatan salalay sadr radaydi masifaynin masooyinkiin sayidka u helay sarkuleeg lama bixinaya muhan sanfur dabadeedi asubixii dhammadaba marbaan saari jiray luuqa sida la qabsadiyo wuxuu leeyahay suwacyo daadheen wayga sirgowdaay asifeeya masadiyey dixdiyaydii hatan yaa labtaydu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن سيديرا وكلي لابله السلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كبعدي ونانتي حفر حد نوع هذا ناي سانتياغو إن ماشى سكوني من الأول موجنا الدراي كنا كاسو كوجهان واقع الصبح يلا كسر الصبح تبغى كنا سكلا معها ودكين وفكر دول جريس راش وري شيء ثاني ناسيو بيجي 10 وري أنا مش متحيل لكن أصل يراها يروح جردها حنوي افتيمين وعد جديرة الصوم مري يوحياها هذا نقصوجها خاصة أنا عبد الشيلان رونهانتي وحكم إذا رجع أقولي إني لعضو مناسبة غير سانتياغو marka waxaan ka lahayn saddex ujeedaan dhihi kara waa mar sidaa la socotiin maanta waxaa laga gudbay wax la yiraahdo maamul goboleed
ama qabiil hebel waxaa lagu tartami doonaa jaaliyad ahaan sida Ohio, Minnesota ama Seattle. Santiago khaasatan waxaan musallim u nahay California community ahaan waxaa waddanka ka socon doonaa oo lagu faani doonaa markay noqoto waxqabad ahaan jaaliyad Santiago community waxay ka qabatay waddankooda waxay ku soo kordhiyeen dowladda hadda dhalatay sidaa la socotiin. cabdishida aad iyo aad buu mahadsan yahay walaalayaal inta aanaan ku kala tegin meesha waqtigu waa gabagabo waxaan idinka codsanayaa reer San Diego inaad u diyaargaroodaan oo la ballaaran oo lagu qaadi doono haddii ilaahay sidii wax loogu aruurin lahaa dadka Soomaaliyeed ee abaartu ay naafaysay oo aad la socotiin cid u garaabaysa iyo cid wax taraysa aysan jirin loo bariyo kaniisado dad annagoo kala ah ay labadooda isugu daraan ay u gudbiyaan hay'ado samafal wax lagu sheegay UN agencies kuwaasoo la sii hara 80% annaga oo walaalaheen ay yihiin dad aamin ah oo u sameeyay oo guddiyaal ah oo lagu xiri doono guddiyaal kaleeto oo laga sameyn doono waddanka gudihiisa haddii lahayd inaan u diyaarino walaalayaal loo diyaar garoobay qof walba wada $5 $10 $50 guddiyadaas dhawaan baa la sameyn doonaa masaajidada laga iclaamin doonaa community-da mataqaanaa laga iclaamin doonaa loo diyaar garoobo arrintaas midna kuma dooran haatana waxaan u yeerayaa haddii lahayd heestii سيد محمد عبد الله حسن هديكي صوماليين يا قرنيه ونيكي وغوري ودغدغاقيسا gumaysigii ingiriisku ka koodiriga diyaarado dagaal caaway waxaan la joogay sayidka oo waqti dheer ahaa safiir waa garan kartaan ambassador cabdulaahi xaaji cabdiraxmaan kusoo dhawow السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجي الدمر اليرى جدي وسلامتين. وحرم مرينا يا هذا الكير وحرم النمالي. ما هو بوا على جهضي. هذا بوا على جهضي. هسا إنك صار مكر ورقة كوي متي. وحير بعض السنة Soomaalidu dhibaatadeedu waxay bilaabatay waajibna lagu tahay inaan taariikhdeeda barno dadka dhalinyarada ah ama ku koray meelaha in af Soomaaliga aqoonin ay suurto gal tahay inaad la kulanto aabiyo hooyo af Soomaali ku hadlayo carruurtooda af Soomaaliga aan aqoonin waxaa weeye arrimaha loo baahan yahay dhaqanka وأنا إنه ذا الكلام يمين وحنا هاي Soomaalina waa nahay Mareykanna waa nahay waxaan joognaa dalkii ilaah baa u tara ilaah baa weyn laakiin dalkii ugu awood badnaa adduunka ayaan joognaa qaybna aan ka nahay loo baahan yahayna in la muuqdo Soomaalidu dhibaatadeed u horreysay waxay qaybtii la qaybiyey ayagoo dhulkooda la imaanin baa Yurub intii lagu shiray baa la qaybsaday dad inay isku mid yihiin isku aragti yihiin isku laqad yihiin isku din yihiin isku dhaqan yihiin kolkii la arko haddee dadkaas haddaan la kala qaybanin awood bay leeyihiin mar kasta waxaa dhacday marka inay qaybiyey Yurub ay yidhahdeen dhulka khayraadka dunida mustaqbalka noqon doonana waa Afrika ha la qaybiyo inaan isu sheegno weeye hase ahaatee Soomaalidu ilaa Axmed Gurey rag badan oo taariikh galay bay leeyihiin waxaanse ku soo koobayaa dambe wixii ka bilowday xorriyadda markii raadinayay calanka arkaysaan calankoon la saarin ayaa rag u fakireen weliba nin shakhsiyan hal nin baa keenay fikraddan calankaa shanta geysa isagoo tilmaamaya Soomaalida sida loo kala qaybiyey iyo bulugaas erka weeg aan caadka lahayn ninka Maxamed Cawaala la oran jiray waxaan u sheegay magaciisa ruuxii taariikh la wadrinaad fahamtaan oo barataan ayaa loo baahan yahay kadib waxaa dhacday in la isku daro Soomaali dawladda ay noqoto Soomaali oo baa kacday meel kasta oo joogta shanta geesba ma dhicin waayo dadka awoodda leh ilaah baa awood leh markasta
markaas u talinaya ama si kale ugu arkayeen lama jeclaysan inay Soomaali mid noqoto markii hore waa la kala qaybiyeen xorriyaddii markii la dhinacan koonfur talyaaniga loo dhibay 10 sano 10 sano loo dhibay talyaaniga markuu yimid ma filaynin inuu ka tagayo wuxuu ku shaqeeyay inuu joogi doono weligii siduu markii hore ku gumaysanayay 4 sano waxaa la isku dayay inuu wax bedelo una bedeli waayo Soomaalidu kala qayb waayo oo na dawad buuyin marka waxaa jecelnahay qof kastoo madaxweyne oo loo qabto inaan ku kalsoonaano